simple present tense waa tensiga labaad. What is simple present tense? Waa maxay simple present tense? Simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action verb which kaasoo happinista everyday maalin walba. Give kabdeh an example and formula qaacida. Subject plus to slash does plus verb plus subject. Subject plus to slash does plus verb plus object. Tensigan waxa uu ka hadlaa wax maalin walba dhaca. Everyday maalin walba wax dhaca. Subject waa sameeyaha plus to lagu daray caawiyaha slash does lagu sii diray plus verb ficilka plus lagu daray object lagu sameeyaha midka ugu dambeeya object la dhahaa. I aniga, we annaga, you adiga mise adinka, they iyaga, dhammaantood waxay qaataan halahaas do. Ay dhinaca kale she ayada, he isaga, it ayada mise asigoo xayawaan ah waxay isla qaataan saddexdan does. Examples tusaalooyin. I eat breakfast waxaan cunaa quraac. We learn waxaan baranaa English Ingiriiska. You drink a tea adigu waxaad cabtaa shaah. They work every day iyaga way shaqeeyaan maalin walba. She cooks iyadu waxay karisaa foods cunto. He goes wuxuu aadaa to school iskuulka. It eats waxay cuntaa the grass cawska. I eat mar kale I eat waxaan cunaa breakfast raac. We learn English annaga waxaan baranaa Ingiriis. You drink tea adigu waxaad cabtaa shaah. They work every day iyaga way shaqeeyaan maalin walba. She cooks food iyadu waxay karisaa cunto. He goes to school asigu wuxuu aadaa iskuulka. It eats the grass iyadu waxay cuntaa cawska. It waxaa loo adeegsadaa xayawaanka sida xoolaha oo kale. Halahan waxaa la isku yiraahdaa positive answer word. Jawaab caadi ah aan didma ahayn. Waxaa gudbaynaa qaabka su'aal looga dhigo. La soco cashirka. Questions su'aalo. Question waa marka su'aal laga dhigaa. Waxaa soo hormarinaysaa mid walba waxa uu qaata caawiyihiisa. Do I eat breakfast? Aniga miyaan cunaa raac. Do I eat breakfast? Aniga miyaan cunaa raac. Do we learn English? Anaga miyaan baranaa English Ingiriiska. Do we learn English? Anaga miyaan baranaa English. Do you drink tea? Adiga miyaad cabtaa shaah. Do you drink tea? Adiga ma cabtaa shaah. Do they work every day? Ayaga ma shaqeeyaan maalin walba. Do they work ayaga ma shaqeeyaan every day maalin walba. Does she cook foods? Ayada ma karisaa cunto. Does she cook foods? Ayada ma karisaa cunto. Does he go to school? Asiga ma aadiyaa iskuulka. Does he go ma aadiyaa to school iskuulka. Does it eat grass? Ayada miyay cuntaa cawska. Does it eat? Ayada miyay cuntaa the grass cawska.
Waxa ugu gudbaynaa qaabka looga dhigo jawaab diidmo ah. Negative answer word. Negative answer word. Jawaab diidmo ah. I don't eat breakfast. Aniga ma cuno quraac. We don't learn English. Annaga ma barano English. You don't drink tea. Adiga ma cabtid shaah. They don't work every day. Ayaga ma shaqeeyaano maalin walba. She doesn't cook food. Ayada ma kariso cunto. He doesn't go to school. Asiga ma aadiyo iskuulka. It doesn't eat grass. Ayada ma cunto cawska.